isla markii daanyeerkii geliyey xariga faraska biridle afka libaaxa ayuu dhabarkiisa fuulay kadibna ninkii loo yaqaanay dilaaga libaaxa ayaa libaaxii ku kaxeeyey ilaa gurigiisa wuxuuna ku xiray geed hortiisa yaalay markaas ayuu xaaskiisa ugu yeeray isagoo leh kaalay waxaan keenay dameer aan si degdeg ah uga baxno halkan laakiin markii ay xaaskiisu si dhow u eegtay xayawaanka way yaabtay waxayna tiri warsu kani dameer ma aha ee waa libaax ninkii ayaa yaabay oo ku jawaabay haddaba maxaan samaynaa hadda xaaskiisii ayaa si degan u tiri hadda meelna uma socon karno subaxda marka ay yimaadaan daanyeerada uu madaxu soo diray waxaad u sheegtaa inaad libaax qabatay markaasna abaalmarin ayaad heli doontaa ninkii wuu ku raacay fikirkaas wuxuuna yidhi haye sidaas ayaan samayn doonaa habeenkii sidaas ayuu ku dhaafay subaxdii markii ay yimaadeen daanyeeradii madaxu soo diray waxay weydiiyeen haweenaydii aaway dilaaga libaaxa waxay ugu jawaabtay wuu hurdaa wuxuu habeenkii oo dhan la dagaalamayay libaaxa mid ka mid ah daanyeeradii ayaa si degdeg ah ugu cararay madaxii wuxuuna yidhi madaxow dilaaga libaaxa wuxuu soo qabtay libaax wuxuuna afkiisa geliyey xarig dhanka kale madaxii keynta kale ayaa ogaaday in ninka loo yaqaan dilaaga libaaxa uu dhab ahaantii kasoo jeedo keyntiisa markaas ayuu madaxii ku yidhi dawacadii tag oo u sheeg madaxooda inay noo soo celiyaan dilaaga libaaxa sababtoo ah isagu waa nin ka tirsan keynteena dawacadii si degdeg ah ayay ugu carartay keyntii kale waxayna u tagtay madaxoodii waxay ku tiri madaxayagu wuxuu amray in aad noo soo celisaan dilaaga libaaxa madaxii keynta kale ayaa si kibir leh u yidhi haddii aan diidno maxaad samayn doontaa dawacadii ayaa ugu jawaabtay madaxayagu wuxuu leeyahay haddii aad diidaan markaa dagaal isu diyaariya madaxii ayaa ku jawaabay tag oo u sheeg madaxaaga inaan dagaal diyaar u nahay dawacadii ayaa dib ugu laabatay madaxeedii waxayna ku tiri madaxow madaxii keynta kale wuxuu yidhi ma soo celinayaan dilaaga libaaxa waxayna u diyaarsan yihiin dagaal isla waqtigaas madaxii keynta kale ayaa amar ku bixiyey in la keeno dilaaga libaaxa wuxuu daanyeer ku yidhi tag oo halkan ii keen daanyeerkii ayaa si degdeg ah u orday wuxuuna u tegay ninkii isagoo leh madaxu wuu ku yeerayaa